yaabkii haddii aynu shalay toola ka soo hadalnay gabadh lamood sharaab qasaysa welibana si farshaxan loo heer saraa u jiidaysa. maantana waa ka daroo dibidha, waa makaag iyo fajac, afka qalaqaad iyo weliba hanfariir aad la yaabto. waa gaadhi lamood iska dhan oo isaga oo dhammi waxa uu leeyahay hal taayir. waa tana tiknoolajiyadda ayaa marba heer joogta. duniduna waxay la circiraysaa ciidda gaadiid ka badan oo midba nooc iyo nashqad gaaraya, nuucba nooc ka cugan yahay kana cusub yahay, oo weliba moodeel ahaan iyo isbiidh ahaan waa qaabka xawaaraha ama socodkee uu kii hore wax badan kaga duwan yahay. injineerada gaadiidka u gacan qaaday ee raba inay soo saaraan kolba dar cusub waxa ay marayaan heerkii ugu dambeeyay ee nashqadeynta gaadiid shimbira u eg iyo kuwo leh sansaan ka duwan. waa adduun hore u guuray, soomaaliduna ay ka hadhay. mararka qaar waxaad arkaysaa gaadiid laga dheegtay amase u eg shimbiraha noocooda qooleyda loo yaqaano, xaadka adagta iyo kuwa kale, sida diyaaradda khatarta ee Chinaha iyo sidoo oo kaleeta Maraykankuba ay wax ka haystaan. siba wadanka Maraykanku diyaaradda uu haysta ee aadka u khatarta badan leh, taasi oo u eg shimbirta haadka adagta. waa noocba nooc iyo marxalado ka duwan marxaladihii hore. waxaad arkay intaad joogta dunida wax kaa yaabiya. tiknoolajiyaduna waxay noqotay casrigani halkii ugu dambaysayo iyada ayaaba xadhkaha goosatay. dadka soo saaraya dhisaynadaasi oo injineerada ah iyo shirkadaha ka qaybta ahna waxay hogaaminayaan nashqadihii ugu dambeeyay suuqyada caalamka kusoo fasaxayaan. su-aasha isweydiinta le waxay tahay, ma raaci lahayd gaadhigan oo ma isku aamini lahayd adigu? mahadsanid. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. fadlan subscribe saar kuna soo buur barteena YouTube.